Assalaamu calaykum dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkan ama clipkan oo aynu kaga hadli doono xawaaraha iyo xadidaadiisa ama speed limit waxa loo yaqaano. Geschwindigkeitsbegrenzung waa xuduud xawaareed loogu talagalay inaanad ka badin ama aanad ka yareyn intii loogu talagalay. Cashirkan waxaan si gaar ah ugu soo qaadan doonaa xawaaraha ugu badan ee aad ku socon karto ee aan loogu talagelin inaanad ka badinin. Cashirka dambe ama barnaamijka dambe waxaynu kusoo diyaarin doonaa speedka ama xawaaraha ugu yar ee aad ku socon karto. Waxa kale oo aynu arki doonaa calaamad aad ku garan karto inay kaa dhamaatay speedkii ugu badnaa ee lagugu talagalay inaad ku socoto. Calaamadan waa calaamad muujinaysa in uu kaa dhamaaday speedkii lagugu talagalay inaad ku socoto. Waxaana dhexda lagaga qoraa kolba xawaaraha ugu badan ee aad ku soconaysay ama aad hadda kasoo gudubtay. Wixii intaa ka dambeeya waxaa ku hagaya astaanta ama calaamada ugu horeysa ee kuu soo baxda hadday tahay autobahn ama Landstraße ama magaalo dhexdeed. Calaamadan waa 30 zone, waa meel magaalo dhexdeed ah, gaar ahaan xaafado aad ku arki karto caruur, dad lugeynaya, baaskiil iyo baabuur baarkin ah. Waxaana loogu talagalay speedka ugu badan aad ku socon karto inuu noqdo 30 km/h ama km/h. Waxaana inta badan ka jira xeerka la yiraahdo rest for lanes oo ah gaariga bidixda waxaa kale gaariga midigta, sababtoo ah ma jiraan calaamado badan oo kala hagaya baabuurta. Astaantani waa mid muujinaysa inaad ka baxday 30 zone ama meeshii loogu talagalay speedka 30 ah inaad ku socoto. Calaamadan waa calaamad muujinaysa in aanu xawaaraha ka badan 60 km/h. Waxaa kaa dhamaaday xawaarihii loogu talagalay inaanad 60 km ka badin saacadiiba. Calaamadana waa sidii tii hore oo kale, looguma talagalin inaad ka badiso 80 km/h. Markastana waxaad ku garan kartaa calaamada goobaabta ah ee cas iyo nambarka gudaha kaga qoran. Tanna waxa ay tilmaamaysaa inay kaaga eg tahay halkan 80kii lagugu talagalay inaad ku socoto. Calaamadani waa 60 km/h ka badan kuma socon kartid. Waa goorma? Waa marka uu dariiqu qoyan yahay ama uu roob da'o ama ay biyo marayaan. Sidaas darteed ayaa calaamada hoose ee gaariga lagugu daray. Hadiiba ay cimiladu wanaagsan tahay oo dariiqu qalalan yahay ama aan wax qoyaan lahayn, waad ka badin kartaa 60 km. Saas ayay macneynaysaa calaamadani. Calaamadaha qaarkood waxaa lagu raacinayaa sababta speedka loo yareynayo ama xawaaraha loo yareynayo. Tusaale ahaan, calaamadani waxay tilmaamaysaa inaad ku socoto 70 km/h, sababtoo ah waxaa ka horeeya ama aad arki doontaa waxoogaa kadib Kreisverkehr ama meeshii goobaabada ahayd ee ay baabuurtu jihooyinka badan uga imanayeen. Tanina waa mid kale oo cadeynaysa sababta speedkaaga loogu soo koobay inaanad 60 ka badin, waayo waxaad la kulmi doontaa ama ka horeeya Baustelle. Waa meel dhismo ka socdo dariiqa ama dariiqa dhexdiisa. Mararka qaarna waxaa dhacda dariiqii labada ahaa ama saddexda ahaa in lagu soo koobo 2 ama 1. Intaas waxay noogu dhan cashirkeenii koobnaa ee ku saabsanaa speed limitka ama xuduud xawaareedka. Si aad ula socoto casharada dambe, fadlan subscribe,
lana wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.